caruure waxaan idiin hayaa asbuucan sheeko qurux badan. sheekadaas waxay ahayd laba nin oo saaxiibo ah. labadii nin oo saaxiibada ahaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mida in ay safar u baxaan. labadii nin way israaceen. inta ay jidka socdeenna labadooda way sheekaysteen. kadib mid baa wuxuu yidhi, saaxiibow, anigu ilaahay wax ka codsanayaaye adigana ilaahay maxaa ka codsanaysaa? codso horta adiga. kii koowaad ilaahay ayuu baryay. wuxuu yidhi, ilaahayow, waxaan kaa baryayaa ari fara badan inaad isiisid oon caanaha ka cabo, hilibkiisana aan ka dhargo. kii kalea ilaahay wax ka codsaday. wuxuu yidhi, ilaahayow, waxaan kaa baryayaa waraabo badan 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 inaad isiisid si uu u cuno arigaaga. maxaa ka wadaa? maxaan ka wadi lahaa? yidhi, halahaasoo ari markaa codsanaysid aniga maxaa ii qaybta? labadii nin way isku xanaaqeen oo saaxiibada ahaa. way isdagaaleen. siday isku dagaaleen ilaan waa duur meeshay joogaan, cid kale celinaysa ma laha. way daaleen, midba meel u fadhiista. waxay sugeen qofkii meeshaas soo maro si ay gartooda ay ugu dhiibtaan. jidkii waxaa soo maray nin safarey ah. wuxuu wata geel. waxaa u saarnaa 2 haamood oo subag ka buuxo. ninkii waceen waxay ku dhaheen, saaxiibow, ninkaani aniga noo kala garqaad. sheekadii dhanna way uga sheekeeyeen. ninkii wuu soo degay, 1 haanoo subag wuu soo dejiyey, dhulkuu ku daadiyey. labadiinaba doqomiin ayaa tihiinuu yidhi. siduu subagaas u daatay, ilaahay ha ii daadiya haddaydan labadiina doqomiin ahayn. labadii nin waxay istuseen inay qaldan yihiin, ninka ay garta u dhiibteenna uu yahay nin waalan. sheekadiina caruure sidaas ayay ku dhammaatay. sheekadaas maxay tusaysaa caruure inaysan fiicneen lacala in laysku dagaalo. si ay caruurtaada ugu bogtaan nashiida iyo barnaamijyada caruurta, subscribe dheh janaalka Astaan Uwad, like iyo share.